Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada suuqa dahabka ee magaalada Madiina. Hal mid ayaa ku jirta oo ah Maka, I believe. Inta kale waa suuqii Madiina oo aan gabadh soo raacay, laba gabdhood, laba maalmood oo dahab kala gadanayeen. Dahabku aad ayuu Madiina qaali u yahay. Labada Maka ayaa jabnayd, laakiin still Maka xataa qaali buu ahaa, laakiin Madiina ayaa aad u qaalihayd. Waxa aad u fiican oo aan ku arkay Sacuudiga dahabka markaynu dadkeena qurbaha joogo oo kale, hadda Mareykan oo kale, Mareykan markaad dahabka celinaysid lacag aad u raqiis ayaa lagaga ceshadaa. Laakiin maasha Allah, Sacuudiga Maka iyo Madiina labadaba unbelievable lacag badan ayaa lagu soo celiyaa. Waxaa jirta gabadh aan isla soconay oo aan dahab ay gadatay, dahab weliba dahabkaasoo dahab run ah ahayn 21 18 iyo dishooto kuwaynu naqaana ah. Waxay tiri Mareykan 150 $160 baa laygu yiri lagaga celinayaa, laakiin Sacuudiga $426 ayaa lagaga ceshaday. Markaa farq weyn ayaa u dhaxeeya. Waxaa jira dad badan oo dahabkooda intii dahabkay rabeen inay celiyaan ama bedeshaan ay ku bedeleen dahab Sacuudiga ah, ama ay ama Sacuudiga ay ku gadeen lacagtoodina la soo noqdeen. Markaa Sacuudiga waxaan arkay inuu aad uga qaalisan yahay marka dahabkaad celinaysid comparing dadkeena qurbaha jooga, especially aniga Mareykan meelihii aan tagtagay magaaladayada. Marka maasha Allah, dahabka Sacuudigu waxyaabaha aan ku arkay aniga maadaama aan Dubai wax badan iskaga daba noqon jiray oo dahabka Dubai aqaano. Dubai fashionka markay noqoto, Dubai ayaa dahab qurxoon, style design-kooda markay noqoto new style ba maalba soo baxa. Laakiin Sacuudiga dahabyo aad fara badan ayaan tagnay. Dahabkeedu waa dahab oola, waa dahab aan aniga cajabin. Ma comparing markaad barbar dhigtid dahabka Imaaraadka choices badan baad leedahay. Dahab fashion baad heli, dahab fudud baad heli, dahab qurux badan baad heli. Laakiin Sacuudiga kuma aan arkin kuwaas. Dahabkoodu dahab qurux badan wuu yaalay, laakiin sida Imaaraadka oo kale maaha. Hadda wiilkaasi jinjimaha uu gadayo 4 jinjimood bay ahaayeen, gabadh ayaa ka gadatay $36 garaam iyo adigu 37 garaam ayay ahaayeen 4 jinjimood. Wuxuu gabadha markuu dahabka ka ceshanayay, dahab ay wadatay, wuxuu kaga ceshaday $60, isaguna iyada wuxuu kaga gaday $66. So that's price aad u fiican buu ahaa. Markaa gabadhu halka gacan ay haysatay iyo katiinad ayay celisay, waxay kusoo bedelatay 4 jinjimood oo qurux badan oo yacni every single maalin kasta ay xidhan karto. Markaa maasha Allah, aad ayaan uga helay dahabkooda qiimaha celiska markay noqoto. Sababtoo xataa Imaaraadka berigii ugu dambeysay 2019 baa ugu dambeysay, celisku mar walba wuu raqiisnaa marka la eego, iyo even xadeena qurba. Gacmahan aan aad u jecelahay aniga. waad sidaad aragtaan waxaan aad ugu focus gareynayaa jinjimaha iyo gacmaha. Jinjimaha iyo gacmuhuna dahabka waa labadaan ugu jecelahay. Aad ayaan u jecelahay waxyaabaha gacmaha la gashado ee fashion ah, qurxoon, everyday aad gashan kartid, ama jinjin ama laba jinjimood ama jinjimooyin gacmo. Markaa dahabkooda maasha Allah ma xumayn, laakiin I like it ka Imaaraadka. Barayskooduna sideedaba wuxuu ahaa barays aad u fiican marka aan arkay celiska markay noqoto iyo markay ka celinayeen. Maasha Allah, waxaa jirta gabadh aan la socday oon habeen katiinad kasoo gadana, wiil aad si fiican noo galay, waad arki doontaan. Katiinadaas gabadhaasi waxayd katiinad simple ah, picturekeeda ayaan idin tusi doonaa insha Allah bidmilaahi karin. Waxay ahayd 6 garaam iyo 3 riigo. Waxay kusoo gadatay $445 oo doolarka Mareykanka markaan u bedelo doolarka Mareykanka. Markaa katiinadu waxay ahayd only 6 garaam iyo 3 riigo. Markaa katiinad iska simple bay ahayd maasha Allah. Markaa dahabku qiimaha wax ku xidhantahay garaamka aad gadanaysid, laakiin dahabku moor culus iyo moor qaali yahay. Markaa kusoo dhawaada Sacuudiga iyo dahabkiisii, special magaalada Madiina Al Munawwara. maasha Allah, dhegahan yaryar insha Allah daawasho wacan. Waxaa kale oo Sacuudiga raba inaan idiin sheego, Imaaraadka marka aad dahabka gadatid, dadkeena qurbaha ka yimaada ama Africa anywhere oo aan ahayn Sacuudi dalada, especially taxi ayaa jirta lacagta lagu
beriga hore imaaraadku muu lahaan jirin, laakiin 2019kii markii iigu dambeysay sanadkaa waa lagu daray. markii sanadkii ka horeeyay ama 2 sano ka hor ma ay lahaan jirin. markaad alaabta gadanaysa sideena dadka qurbaha joogo kale taxi ayaa lagugu darayaa. ha yeeshee daadyeerka 2019kii markii iigu dambeysay dahabka markaad gadatid imaaraadka lacag taxi ayaa lagu saaray sida dadkeena qurbaha joogo kale. laakiin waxay ku fiican tahay marka aad soo noqonaysid ee riboodka ayaad lacagtii taxiga ahaa maadaama aanad ahayn qof imaaraatiya waad kaleem garaynaysaa. lacagtii taxiga ahayd 75% way kusoo noqonaysaa, laakiin waa inaad rasiidkii haysatid, kaadhkii aad lacag dahabkaaga ku gadatay ama kaash haddii aad ku gadatay rasiidkii ee riboodka marka aad joogtid ayaad tegaysaa xafiiskooda. intaanad soo dhoofin waad kaleem garaynaysaa ama lacagtaadi ayaa lagu soo celinaya. aniga saas ayaa ahayd markaa. laakiin markaad Mareykan kusoo noqotay like 3 weeks 4 weeks kadib lacagtii kaba soo qaado kale hadduu taxigaagu ahaa $500 waxaa lagu soo celinayaa 75%. markaa maasha Allah faa'iido badan weeye haddaad imaaraati tahay oo dad imaaraadka u dhashay oo sharciga imaaraadka haysta oo da carab aad tahay lacag laguma soo celinaya. laakiin dadkeena maadaama aynu qurbaa ka nim oo aynaan u dhalan imaaraadka waa lagu siinaya. ha yeeshee Sacuudiga waxaan kusoo arkay hadda markii aan dahabka gadayay aan gabdhaha la gadayay waan weydiiyey Sacuudiga may jiraan. Sacuudiga taxi lagu soo celinaya ma jirto, taxina waad bixinaysaa, taxina lagu soo celin maayo. laakiin Dubai markii iigu dambeysay dahabkii aad gadatay lacagtii taxiga ahayd oo lagaa qaaday waa lagu soo celinayaa. waataa katiinadii aan idiin sheegayay 6 gram iyo 3 riigo. marka sidaa ula socda haddii aad fahmin special dadkan qurbaha joogin maybe inaanay fahmin insha Allah bidmillahi karin si fiican ayaan kugu sharaxaya ii sheega isoo weydiiya. marka dahabkii waa ka Sacuudiga marka waxyaabaha ku soo arkay taas ay ahayd ay ku kala duwanaayeen imaaraadka inaan lacagta taxiga lagu soo celin. meel kasta aad tagtid haddii aad tahay qof qurba jooga sidoo anigoo kale Mareykan dadkeena jooga ama Europe anywhere haddii aan hadda Faransiiska tago oo kale oo aan soo gato dhar boorsooyin wax qaaliya lacagta taxiga oo la charge gareeyay waa la soo celinayaa. laakiin waa inaan Mareykan markaan imaado aan sheego imaaraadku sidoo kale laakiin Sacuudiga ma jirto. marka gacmaha yaryar aad ayay u qurux badnaayeen aad ayaan uga helay. aniga waxaan aad u jeclay gacmaha. dahabkana waxaa fiican inuu qofku kala leeyahay dahab uu ku xaragoodo iyo dahab uu maalin kasta xidho oo xaraga ah iyo dahab meelaha muhiimka marka malaha looga yeero aroosyada oo kale. inaga haddaynu Soomaalinahay dhibaatada ina haysata waxay tahay dahabkeena ma isticmaalo. dahabkeeni guryuhu iska yaala intaynu dahabyo waaweyn oo qalbaciyaa gadano ayuu meel iska yaala ma xidhan kartid, magaalo lama aadi kartid, meel lama aadi kartid, meel buu iska yaala waxa weeyaan daasad meel iska taala. laakiin dahabka yaryar gacmaha jinjimaha waad ku xaragoon kartaa. hadda inaga dhif faranka inoo dhaxeeya inaga iyo dadka Carabta iyo Eeshiyaanka haddaad qurbo joogtid u fiirso dadka Eeshiyaanka Hindida Bakistaanida Bangladeshka Carabta maasha Allah every single day jinjimahooda way xidhan yihiin, dahabkooda way xidhan yihiin, way ku xaragoodaan. iskuul aada shaqo aada dukaamada ka shaqeeya grocery dadkaas dahabkooda way ku xaragoodaan sababtoo ah dahab ay maalin walba xidhaan ayay gataan iyo dahabkooda kalumalaha meelaha u yaala. laakiin inaga dahabyada arooska ayaynu aadnaa iyo baadhi iyo markaynu qof kale iska dhaadhicinayno. markaa dahab 100 gram haddaad soo gadatay uu guriga ku yaala meel lama aadi kartid. laakiin dahabka fudud oo fashionka every single day baad xidhan kartaa, meel kastaad la tegi kartaa, waad ku xaragoon kartaa, shaqaad la aadi kartaa, iskuul baad la aadi kartaa, caruurtaadad magaaladu it's something aad maalin walba xidhan kartid. marka insha Allah bidmillahi karin aniga waxaan jeclahay dahabka xaragada ah. dahabku shayga iyo waxa aad lacagta gelinaysid haddaadan ku xaragoonayn ay meel iska qotomaan nonsense weeyaan to me aniga ahaan. gabadhu way fiican tahay haddii awoodo inay haysato 2 set 3 wada ay awoodo oo markay meelaha waaweyn looga yeedho ay qaadato ay haddii awoodo. laakiin waxa muhiim ah in dahabkaaga aad haysatid uu yahay wax aad ku xaragoon kartid, wax aad maalin walba xidhan kartid, waxaad magaalada la aadi kartid, gacmahaaga xidhan kartid, farantiyadaada aad xidhan kartid oo aan culays lahayn. dahabkuna marka uu fudud yahay
qurux iyo fashion iyo buu yeeshaa saacad baad u xiran kartaa iyagaad isdhex gelgelin kartaa marka insha allah biidmillaahi karin inaga laakiin dhibka ina haysta waxa weeyaan dahabkeeni meel ayuu iska yaalaa biyud kisto ayaa inoo buuxda meel buu qutama sanad walba sadaqaynu ka bixinaynaa kumana xaragoono daasta aniga dahabka waxyaabaha aanan ku jeclayn laakiin in qofku haysto raasamaal way fiican tahay marka yaanan idinku sii dheeraan insha allah biidmillaahi karin dahabka designka fashionka ogow dahabkeena aynu noqono dad waxaynu ku xaragoon karno iyo waxaynu maybe raasamaal u dhigano haddii dee just in case ilaahay wax inagu keeno markaa sacuudiga dahabkiisii maasha allah aniga dahabka imaaraadka ayaa sidaan idhi igala qurux badan inta uu doono sababto imaaraadka more choices badan ayaad haysataa suuqa dahabkuna aad ayuu uga weynaa markii kii madiina iyo kii dubay aan aqaanay laakiin siday tahay dubay choiceskaga ayaa badan dahab fashion oo qurux badan fudud hadday doonaan culus qurxoon meelo badan baad tegtegi dahab kale maasha allah aad ayaan jinjimaha u jeclahay jinjimahooda aad ayaan uga helay jinjimooyin yaryar khafiifa gacmo wax kasta aad u baahantahay waad ka helaysaa marka yeelan insha allah biidmillaahi karim kusoo dhawaada dahabkii maka aan munawara barayskuna hadda wuu kacsanaa maadaama ay ciidkii tahay meel kasta dahabku aad ayuu hadda u kacsan yahay xiliyada ciidka because maasha allah dadka carabta aad ayay reerahooda xaasaskooda iyo caruurahooda ugu gadaan dahabka marka dahabku qaali weeyeen xiliyada ciidka iyo rabadaanta inshteen video kale ku kulmayno videoga like saara assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu